magaalada muqdisho muddo 25 sano ah ma lahayn maktabad bulshada u furan oo wax laga akhristo dagaaladii ayaa burburiyay maktabadii qaranka koox dhalinyaro ah oo haddaba isxilqaamay ayaa waxa ay fureen maktabad si ay u dhiirigeliyaan wax akhrinta wariyaha BBC ee muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray inta badan fasaxooda toddobaadka halkan ayay ku qaataan waa qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha muqdisho macallimiinta iyo dadka jecel wax akhrinta buug aan tiro badnayn oo af Soomaali Carabi iyo Ingiriis ku qoran ayaa yaala balse dadka maktabaddan ku xiran waxay u muuqdaan in ay ku qanacsan yihiin adeegan aniga marka xagga joogo hilow aan qabaa inaan meeshan imaado oo aan wax dad ila mid ah oo maxaa la dhahay maktabad aan wax walba ka heli karo buug Soomaali ka heli karo Carabi ka heli karo English ka heli karo aan wax ka akhristo waxaan u maadaa in aan aqoon kororsi oo taariikhda Soomaali dhaqamadeeda iyo hore in aan wax ka ogaado maadaama dadka oo burburka ku dhacay ka mid nahne oo aan wadanka u soo joogin iyo soo dawlad leh saas darteed in aan wax badan ka ogaado Soomaaliya ifiye waxaa la aasaasay sanad ka hor maalgelinteedana waxa ay ku tiirsan tahay dhalinyaro 13 ah oo ku bilaabay buugaagta guryahooda yaala wili bulshadii dhaqanka wax akhriska inaan la qabsanin sidoo kale maktabadii weyneed ee qaranka oo ka maqan maaragtay bulshada doorkay ugu jirtay sidoo kale waxa kamid ah madbacadaha meelaha maaragtay buugaagta lagu iibiyo oo aad u kooban magaalo dhan oo maaragtay 3 milyan qofood ku leeyihiin 2 meel ama 3 meel kaliya buugaagta lagu iibiyo dawladda Soomaaliya ayaa iyana dhankeeda wada dadaalo ay dib ugu soo nooleynayso maktabadda qaranka oo ku burburtay dagaaladii dalka soo maray dhismahan waxaa la dhisay sanadkii 1984 waxa ay ka dhigan tahay in uu taagan yahay muddo ka badan 33 sanadood muddadaas intaa la eg waxa uu calaf u yeeshay in uu maktabad ahaado ama hawshii loogu talagalay uu guto wax ka yar 6 sanadood oo kaliya muddada intaa la eg ee soo hartayna waxa uu ahaa goob dagaal iyo sidoo kale meel ay barakacayaashu ku nool yihiin xogaa buugaag ah oo u badan kuwa manhajka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayaa dhowaan maktabaddu heshay balse howlwadeennadu halkan waxa ay rajaynayaan maalgelin iyo taageero intaa ka badan waxyaabaha caqabadka noogu horreeya waxaa ka mid ah dayactirka meesha insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed anagoo adeegsanayna diasporada civil society-ga dadka dhalinyarada anagoo adeegsanayna iyo cid walba oo daneynaysa inay mujtamaca Soomaaliyeed wax la qabato 2018 insha Allah ta'ala dhameystirkiis oo dhameystir oo si full oo dhameystiran oo adeegiisu bilaabana jeerina hadii Allah yiraahdo dib u furitaanka maktabadda qaranka oo ay hadda maamulaan gole ay dawladda Soomaaliya u magacawday waxa ay ku xiran tahay hadba sida ay u hesho taageerada hay'adaha caalamiga ah Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho